ayaxu waxa uu bilihii ugu dambeeyay saameyn ku yeeshay deegaanada dowlad goboleedka Galmudug waxa uu ku degay goobo badan oo ku yaala gobolada Mudug iyo Galgaduud oo laga beeray dhul beereedyo isla markaasna uu xaalufiyay sida ay sheegeen dadka beeraleyda ee ku sugan gobolada Mudug iyo Galgaduud sidoo kale waxa uu xaalufiyay dhulka miyiga oo ay dadku xoolaha daaqsan jireen bilooyin kadib dowlad goboleedka Galmudug oo kaashanaysa wasaaradda beeraha dowladda Soomaaliya ayaa bilowday barnaamij lagula dagaalamayo ayaxa deegaanada Galmudug kaasoo iminka u muuqday inuu deegaanada Galmudug wali uu dhibaato ku hayo mas'uuliyiin iyo sidoo kale xirfadlayaal si gaar ah u tababaran oo loogu talagalay inay la dagaalamaan ayaxa ayaa waxay ka howlgaleen deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud gaar ahaana deegaano aan sidaas uga fogeyn magaalada Dhuusamareeb hawshan oo iska kaashanayaan wasaaradaha beeraha dowladda Soomaaliya iyo Galmudug waxay iminka Galmudug ay doonaysaa inay wax kaga qabato ayaxa ku sii fidaya qaybo kamid ah gobolada Mudug iyo Galgaduud ee dhibaatada ku haya dhul daaqsimeedka iyo beeraha ku yaala deegaanada Galmudug ee gobolada Mudug iyo Galgaduud duqa degmada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug Macalin Nuur Cilmi Garre oo howlahaasi shaqo waday ayaa sheegay inay iminka meel wanaagsan ay marayaan ayna bilaabeen la dagaalanka ayaxa kaasoo dhibaato ku ah dadka ku sugan deegaanada Galmudug gaar ahaan beeraleyda iyo dadka reer miyiga deegaanada gobolada Mudug iyo Galgaduud oo si weyn looga helay xilli roobaadkii ayaa waxa xilligan dadka reer miyiga ay sheegayaan in ayaxu noqday dhibaato weyn oo ku soo korortay isla markaasna uu dhulkii ka dhigay dhul xaaluf oo aysan jirin xilligan dhul daaqsimeed ay dadku deegaanku isku halay karaan isla markaasna ay kaga soo bixi karaan xilliga jiidaalka cali xasan barqadle cali gaab wararka Shabeelle Galmudug